casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Right Excellent CV and Professional Portfolio. Kooraskaas oo lagu baran doono qaabka loo qoro amba qaababka loo sameeyo CV-yo qurux badan oo dhinac kasta ka dhameystiran iyo walibana koofradoodii iyagoo wata iyo sidoo kale qaabka loo sameeyo portfolio-da oo loo yaqaano jaantuska shakhsiyadeed amba in qofkan warbixin dhameystiran ka dhiibto sida muuqaaladii uu sameeyay sawirradii uu sameeyay CV-giisa iyo website-ka gudihiisa ku diyaara waana website online aad ku sameynayso CV-gaagii portfolio-du sidoo kale waxyaabaha lagu baran doono kooraskan waxa ka mid ahaan doona in lagu baro qaabka iyo dariiqada interview-ga loo galo iyo walibana etigiska lagaga baahan yahay dhaqamada isticmaali doonto iyo qaab ahaantaadaba sad iskugu soo diyaarin doontid interview-ga haddaba cidii danaynaysa kooraskan amba u baahan waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga muuqda hadda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلانتي هبون يسكسو نقد مركلة وأن كوكلاني كورسكني CV بورتفوليو كورسكو CV بورتفوليو وكلياتها maaha laakiinse waxa la socda interview tibiski sidoo kale amba sidii aad ugu guuleysan lahayd interview-ga amba wareysiga shaqo ee lagu la yeelanayo sidoo kale waxa ku jiray cover page-ki portfolio-da oo aynu si kala duwan u kala dhigdhigaynay iyo qaabab kala duwan iyo waliba CV-geeni casharkeenan maanta waxaynu ku baran doonaa waxa jirta meeshii interview-ga ayaa timid waad isku soo diyaarisay baynu soo baranay sidoo kale waxaynu soo baranay marka ugu horeysa lagu raado aduna iskaaga barcida tahay ee miiskii soo fadhiisatay wixii aad ku hadli lahayd waynu soo baranay sidii aad isku diyaarin lahayd wixii aad soo xilinaysay iyo waxaas oo dhanna waynu soo baranay laakiin si casharkeenan maanta intaaba uu ka gidisan yahay waxa weeyaan waxaynu ku baran doonaa adigu dhaqan nooceeya ayaa lagaga baahan yahay inta badan bulshada afka Soomaaliga ku hadashay dhaqanka way ku yara khaldan yihiin dhaqanka markaan ka hadlayo dhaqanka interview-ga way ku yara khaldan yihiin waxa jirta caado marka suuqa jooga uu qofku la qabsanayo kadibna markuu goobtii shaqo lagu wareysanayo tago amba uu naxnaxaya amba wuxuu noqonayaa qof gargariiraya amba sidoo kale qof ku feel garoobaya inuu dhaqanka yara hagaajiyo ayuu noqonayaa inta badanna goobaha shaqo walibana ha u badnaadaan meelaha hay'adaha organizationska iyo local iyo international ba waxa inta badan eegaan iyo walibana ganacsatadu qofka dhaqankiisu caynka u yahay dhaqankaaga waxaad ku sixi karaysaa 7 sifo ee casharkan aynu ku baran doono casharkeenan maantuna waxa uu la magac baxay creating positive in the first impression waxaan ku baran doonaa 7 shay oo aad ku sameyn doonto dhaqanka wanaagsan waxa la sameeyaa 7 sekin ee ugu horeysa haddaba 7 shay maxay yihiin bas weydiinaysaa bal aynu guda galno 7deena shayna waxay yihiin haddaba qodobka koowaad waxa uu noqonayaa inaad sameyso marka koowaad inaanad wax xanjo ah meesha ku dhex cunin dadka Soomaalidu inta badan waxa uu caadaa xanjo wixii uu cunayay iyo wixii kaleba inuu goobta la soo galo marka xanjo inaad ku dhex cunto goobta shaqo intaad soo galaysid iyo intaad ku dhex jirtaba waad iska ilaalin doontaa sidoo kale xanjada oo qodobka waxa sidoo kale inoo raaca inaynu earphone aynaan ku dhex isticmaalin goobta inta aynu dhex joogno waa qodobka labaad ee waxaad sameyn doontaa weak handshake markaad sameynayso maxay tahay qofka markaad la kulanto waxaad sameyn doontaa inaad gamcaha si fudud amba si yaro dabacsan marka salaanta lagu salaamo aanad si xooga qofka aanad gamcaha u jiidin laakiinse waxaad sameyn doontaa inaad si dabacsanaana aad gacanta ula ruuxdo qof marxabaysanna aad wajigaaga u ekaysiiso sidoo kale qodobkeena saddexaad waxa weeyaan inaanad gamcahaaga dhigin keeping your hands in the wrong position waa inaanad gamcahaaga dhigin meelaha khaldan sida inaad gamcahaaga jeebadaha gashato inaad gamcahaaga shaarkaaga hoostiisa iyo meelo kaleba aad gashato haddaad funaanad xidhnaydna aad funaanada gamcaha geliso laakiinse gamcahaaga waxaad dul dhigi doontaa haddii aad fadhidana boodiyooyinkaaga dushiisa inta badanna waxaad silaalin doontaa inaad aduu tahay qof aan marnaba intaad halkaa joogto aad samayso dareen dadka soo jiidanaya sidoo kale lagaa dareemo qof mas'uuliyad oo kale ah waa qodobkeena afraad waxa uu isaguna ku hadlayaa eye contact shayga loo yaqaano inaad noqoto qof waji dabacsan amba qof wajigiisu furfuran yahay oo markaad goobta soo gashay interview-ga dhowrkii qof ee ku wareysanayay aad indhaha markaba ka buuxsato sidoo kalena
aad samayso weji furan oo dabacsan oo faraxsan aad samayso laakiin inta badan ha noqonin qof afkiisu kala qaadan yahay laakiinse waxaad noqotaa qof keliyata wejigiisu furan yahay waa marka shanaade waxaad inta badan ha ku mashquulin inaad taataabatid wejigaaga timahaaga iyo waxyaabaha caynkaasa egeegto amba inaad daawato inaad sanka faraha geliso iyo waxyaabahaasi waxaa loogu arkayaa inay dadkiiba kaa wiswisaan oo kulankii koowaad amba dareenkii koowaad ee dadka qancinayay uu noqdo dareen yara liita waxaad iska ilaalin doontaa inay kabahaagu aanay dadka distract garayn amba aanay ku noqon board oo sidoo say ugu noqonayaan qaylada iyo buuqa waxa weeyaan haddaad lugaha amba kabahaaga dhulka jiijiido amba cod kale aad u samayso ood kolba dhulka jiijiido oo aad naxdo amba si kaleba ay kaa tahay amba caado aad hore ula haysatayba ay tahay inta badan waxay samaynaysaa codka inay dadka qaarkood ay dhibsanayaan amba inay ilkuhu ku saliiliyoodaan taasina waxay dhib u keenaysaa amba saameyn u keenaysaa inaad kulankaagan ugu horeeya inay dadku ay ku qancaan amba first impressionka sidoo kale waxaad iska ilaalin doontaa iyadoo loogu wareysanayaba inaad markaba ku mashquusho moobilkaaga caadada ah inay dadku ku mashquulaan inta badan moobilkoodu iyadoo aad dhibaatadaas u fara badan tahay ayaa inta badan dadka shaqaalaysanaya waxay aad u necab yihiin inuu qofku ku mashquulo moobilkiisa gaar ahaan social mediaha intuu shaqada ku dhex jiro iyo intaanu ku dhex jirinba intuu shaqada ku dhex jiro amba intuu howlaha shaqa u hayo taa daraadeed markaad moobilkii adigoo interviewgii lagaa qaadayo aad la soo baxdo aanad ku mashquulsho inaad message telefoonka ku soo dhaca iyo waxyaabaha caynkood social mediaha iyo wixii la midaba waxay sababaysaa inuu qofkani uu kuu arko dadka inta badan moobilka ku mashquula sidaa daraadeedna aad ku weydo guushii ugu horreeyey amba la kulankii ugu horreeyey qancitaankiisii waa midka ugu dambayse iyaduna waxa weeyaan inaad saynu horeba u soo sheegnay markii loo soo diyaar garoobayay inaanad marnaba iloobin labiskaagii inuu qurux badnaado iyo welibana inaad waqtigii ilaaliso labadaa qodob preparationka ayaynu uga soo gudubnay laakiinse toddobadaa qodob ayaa aad u muhiim ah amba xoog usii muhiima ilaa 8daa qodob ayaa xoog u muhiima in la ilaaliyo first impressionka amba ku qancista kulanka koowaad ee qofka aad la kulmaysid sideedabana waxaad iska ilaalin doontaa inaad wejigaagu uu noqdo weji xidhxidhan sidoo kalena wejigaagu noqdo weji inta badan iska qoslaya oo qof bilaa macniya loogu arko xanjada oo iyaduna aad iyo aad u muhiima iyadoo marnaba aad iska ilaalin doonto inaad noqoto qof lugaha ka sarilyoonaya amba galiiraya amba naxnaxaya laakiinse waxaad dareen isgelin doontaa inuu waraysigani yahay waraysiyadii hore ee kale caadiga ahaa haddii aad isku soo diyaariso aad isqeexi karayso qeexitaankaaga koowaad oo casharkeennii labaad aynu ku barnay iyo sidoo kale inaad isku soo diyaariso la kulanka ugu horeeya oo intaas baa iska ilaalisaa waxay kuu saamaxaysaa inaad si guul ay kugu soo dhammaato interviewgaagii casharkeennan maantu bartaas ayuu inoogu joogay waxaanan u malaynayaa ilaa iyo imika qaabkii loogu diyaar garoobayay marka koowaad wixii la isku qeexayay iyo welibana dareenka koowaad qofku sidii ugu qancayay inaydu 3 casharba wax badan kaga fahanteen cashtan iyo intaynu isugu iman doono casharkeenan casharka ku xiga waa aniga oo idinka idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan